waxaa jiri jiray nin reer guuraa ah ayaa muddo reerkiisii ka maqnaa. waxa uu watay hal. maalin maalmaha ka mid ah ayaa asagoo ku soo wajahan gurigiisa waxa uu la kulmay ninkii ayaa ku dhahay, waxaan kuu sheegaa wax weligaa ku anfici doona, balse waxaad iiga beddelataa hashaadii. ninkii hashi ayuu ku wareejiyey, kadib ayuu ku dhahay, ii sheeg wax weliga ii anfacaya. ninkii waxa uu ku yidhi, wax hubso. ninkii reer guuraaga ahaa ayaa ku yidhi, intaas maad hasheeda iga qaadatay. ninkii reer guuraaga ahaa waa uu soo baxay, waxa uu imaaday gurigiisa. markii uu aqalka soo galay ayuu arkay xaaskiisii oo nin kale dhinac jiifo oo go' ku daboolan. waxa uu soo qaatay waran, asaga oo ku dhufan raba ayuu soo xasuustay in hashii loogu beddeshtay wax hubso. go'a ayuu ka qaaday, waaba xaaskiisa aabbaheeda. dhegayste, adiguna weligaaga wax hubso. hubsiimo hal ayaa la siistaaye.